kani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com duhur wanaagsan ayaan idin leenahay asxaabtana daawanaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta iyo dunida qodobada barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona Arsenal oo guul weyn ka gaartay naadiga Manchester United, Liverpool oo dhankeeda guul ka gaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United, naadiga Chelsea oo la celin ayaa xilli ciyaareedkan, naadiga Barcelona oo mucjiso la yaab leh ay haysato wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga waa mar kale iyo ciyaarihii maanta kulanto wacan wanaagsan dhammaan asxaabtana daawanaysa halka nagala socotaa waa Team Tasma waxaad ku soo dhawaataan barnaamij xiisad badan oo aan maanta ku eegi doono sheekooyin aad u fara badan fadlan muuqaalkan haddii uu ku soo gaarsay shirgaray saaxiibadan la wadaag aad ayaad u mahadsantiin dhammaan asxaabta aad iyo aad mahadsantiin maanta waxaa la joogo wariye Catoosh oo dhammaantiin sayid u taqaanaan maanta waxaa rabaa inaan noloshiisa iyo su'aalo badan weydiiyo diyaar oo taamale su'aalo ku weydiiyo aad u mahadsantiin okay hadda dhammaan bulshooyintu waxay ku yaqaanaan Catoosh share magacaaga saddexan aniga asxaabtu noo sheeg in aad u mahadsantaa magacaygu saddexan waa Cabdiraxmaan Buwal Maxmuud oo loo yaqaan Catoosh share marka asxaabta waan salaamiyaa meel walba joogaan inka Soomaaliya hirgab oo jira laakiin aadan idinkaga mahadcelinayaa sida aad barnaamijka ula socota waa mahadsantahay aniga ka wakiila dhammaan asxaabtii meel kasta adduunka joogaan su'aasha labaad xagee baad ku dhalatay Catoosh share adiga aniga waxaan ku dhashay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle qaasatan xaafadda Hantoodaag sanadka markuu ahaa 2002 ما شاء الله وكان عندنا عملية سؤالات سؤال سدحات كله سيده هو بحي مجا عطوش magacan inta badan waxaan gelay waqti iyo sidoo kale dadaal aad u dheer kadib asxaabta ayaa ay baxsatay magacan oo aad ila jeclaatay markii aan ka soo muuqdo social media halkaas oo taageero aad u fara badan aan ku yeeshay qaasatan dartayda Facebook oo ilaa 60,000 oo follow oo gaartay okay ما شاء الله social media kala waas ama malaa Facebook heen waan isticmaalaa sida TikTok iyo sidoo kale YouTube-ka oo inta badan aan isticmaalo iyo sidoo kale Twitter, Instagram, Telegram iyo barnaamijyo badan oo aan isticmaalayaa jiro okay waa mahadsantahay okay su'aasha afraad yaa kugu dhiirigeliyay inaad tijaabiso codka Catoosh share codkaas waxaa ugu dhiirigeliyay wiil la oran jiray Cabdifataax Nuursane iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo reer Jowhar ah oo igu dhiirigelisay in aan codkaasi aan tijaabiyo sidoo kaleetana aan magacaas aan baxso okay magaca codkan waa Catoosh share ma koobiya mismida adiga leedahay codka sidiisa horta waa wax la badan karo laakiin u baahan waqti iyo juhdi inaad geliso codkan isku day dheer kadib markii aan isku dayay waxaan ku guuleysay in aan keeno codkan okay illa muddo ay ugu qaadatina codka keento codkan ugu yaraan muddo hal sano ayaa ugu qaadatay inkastoo saxaafadda aan ku guda jiro ilaa 3 sano aan ku guda jiro saxaafadda okay waayay saxaafadda idaacadii ka bilowday idaacadda aan ka bilaabo waxay ahayd Radio Jowhar halkaas oo barnaamijka maaweelada caruurta aan ka soo bilaabay sidoo kale waxaan ku soo xijiyay barnaamijka sportiga oo aan aad u jeclaa oo dhalinyaro badan ay ugu dhiirigelisay inaan soo tabiyo barnaamijka sportiga okay barnaamijyada aad u jeediso barnaamijka uu jeceshahay sidaan hore kugu sheegay aniga barnaamijka ciyaaraha ayaan aad ugu helaa oo ciyaaraha ku xiranta afalaad saac safiya okay codka Catoosh share Catoosh share saxda ma kula soo xiriiriyay oo dhiirigelinaya qaar safiican asaga uu dhiirigeliyay waa qof aad ii taageero sidoo kale ku faraxsan in aan codkan soo bandhigo sidoo kale tan wuxuu iga mahadceliyay sidaan codkan u soo bandhigay asagana halkan waan ka salaamiyaa waan kaga mahadcelinayaa sida uu ii soo xiriiriyay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan all friends inta aniga i taageerto waan u mahadcelinayaa okay نقول سو حريرين BBC مادام تاي بدلك مستقبل كعطو شارع صفيعا إن أياسما BBC ذا أسجن وان إصلاح هذا الني أو وحو إبلان قادي وحبرشة عن أميو
inuu iga dhigi doono wakiil wareed usoo tabiyo barnaamijka ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya. marka ugu dambeysana aan fadhiisan doono stuudiyahaas aadana ugu faraxsanahay in aan isla xiriirin dad aad u sarsareeya haddii qoleen madaxda ugu sareysa dalka oo qaarkood dhiirigelin aad u badan ay ii sameeyeen. dhammaantood oo mahad celinayna xamar anaga asxaabta nimaqshii codka Catoosh adigoo barnaamijka ciyaaraha ama barnaamijyo kale nagu dhufanayo. halkani waa BBC oo idin kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeenu waa bbcsomali.com. duhur wanaagsan ayaan idin leenahay asxaabtana daawanaysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta iyo dunida. qodobada barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona Arsenal oo guul weyn ka gaartay naadiga Manchester United, Liverpool oo dhankeeda guul ka gaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United, naadiga Chelsea oo la celin ayaa xilli ciyaareedkan, naadiga Barcelona oo mucjiso la yaab leh ay haysato. wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga waa mar kale iyo ciyaarihii maanta iyo dunida. Okay, dhanka Bollywood saas ku tihiin. Bollywood aniga ma daawado oo laakiin waxaa jira barnaamijyo gabayo maahmaahyo oo aan aniga maskaxiyan aan sameeyo oo dadka inta badan xitaa ay la yaabaan aniga oo abwaan ii sameeyeen ayaa maskaxiyan barnaamijkaas hal abuuraa oo barnaamijyo aad u badan ayaa jiro oo hadda xitaa aan jeclahay inaan soo bandhigo oo aan ka soo bandhigi doono social media. marka hal abuuran waan ahay barnaamijyada inta badan aniga ayaa diyaarsado. marka asxaabta aad ayaan u jeclahay dhammaanba inta igu dhiirigelisay intaan igu dhiirigelin. ما شاء الله dhammaan asxaabta waxaan filayaa inay ka qanceen kuna sii dhiirigelin doonaan. Okay, adigoo maasan hal maama ay hal shay gabay aan bi kale waxyaabo oo adi sameysay hamar nagu dhufo. gabayada marka la yiraahdo aad u fara badan yihiin sidoo kale maahmaahyada aad u badan yihiin. midda ugu darneed ee social media aadka u qabsato waxay ahayd barnaamij saddex leeyla dhahayo oo saddex ahay oo asagana ka hadlaya arrimo badan oo bulshada quseeyo. hamar naxasuusi adigoo maasan saddex laguma faano naa qurux badan guri kira ah ee gaari tabal ah saddex looma heeliyo fuli dulmi badan nacas garmaqaata ah ee naag masiir badan saddex looma gar qaado wiil iyo waalidkiis macallin iyo ardaygiis naag iyo nin isjecel saddex dadka ayaa kugu nacayo baahi badan bogtaan badan iyo baryo badan saddex looma xiiso naag faan badan diris xan badan iyo suldaan qaylo badan. dhammaan waa wax xaqiiqa waan jiraane. Okay, inshallah video ina si dhaarad marabo because waa la wadaalin yahay. inshallah waxaan rabaa inta ku soo afmeero. Okay, hal ugu dambeeyo asxaabta aad hayso. asxaabta aad u maasantiin muuqaalkan hala share gareeyo saaxiibo badan hala garsiiyo barnaamijyadeena kale inta dib ayaad la socon doontaa maasanada. inshallah maanta bis kuma koobnaan doono janaalka waa janaalkiisa saan ugu leeyahay hadana inshallah inta ku kulmi doona barnaamijka xooga sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.